hadlaya gudoomiyaha ururka gobolka Selel ee Gurmud waxaan maanta xagan ka sheegayaa ururkaas oo ka aasaasnay degmada gobolka Selel gaar ahaan degmada Saylac taas oo aasaaska markaan dhinac kasta aan eegnay baahida loo qabo ururka waxaan dareenahay in loo qabo baahi aad u weyn in urur laga sameeyo gobolka Selel markaan leeyahay waxa weeyaan waa degmadii Saylac iyo Lughaya markii hore la isku labadii degmood ee markii hore ay lahaayeen ay soo imika la kala jaray innaka waxa inoo tahay taas gobolka Selel ay noogu magacaaban tahay Lughaya taabaan ka sameynay markaa Saylac baahida loo qabo ee ururkuna waxa weeyaan markaan dhinac kasta baan eegnay waxaan aragnay dadkii mas'uuliyiinta ee waaweynaa oo ninba dhinac u koorayo ama ninba dana kale oo gaar ah oonan ahayn danihii dadweynaha ku dhaqan gobolka Selel aanan loo horeyn man aragnay marka waxaa tashaday dhalinyartii gobolka ayaa tashatay gaar ahaan dadkii dhalinyartii joogtay degmada Saylac ayaa tashatay waxayna ku tashadeen inay urur sameeyaan ururkaas oo ah inuu ummadiisa u gurmado ururkaas oo waxyaabihii ummaddu ay u baahnaayeen markaa oo ugu kaalmeeyo